kulankan wadatashiga ay isugu yimaadeen maamulka jaamacadda Imaamu Shaafici iyo ardaydii horey ugu qalin jabiyay jaamacaddaasi ayaa isla gartay sidii ay u dhisi lahaayeen hoggaan cusub oo wax ka bedela qaababka shaqo iyo waxbarasho ee jaamacaddaasi bixiso iyagoo ay ka soo qayb galeen madasha kulankaasi mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradda waxbarashada dalka aqoon-yahano iyo marti sharaf kale ayaa waxaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Imaamu Shaafici ee magaalada Muqdisho. ugu horreyn waxaa madasha kulanka hadal ka jeediyay gudoomiyaha jaamacadda Imaamu Shaafici Dr. Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil Sheekh Culusow isagoo sharaxaad kooban ka bixiyay ujeedada kulanka iyo muhiimadda ay u qabteen. waxaa farxad iyo sharaf noo ah maanta inaan munaasabadan ama shirweynahan halkan ku qabanayno oo hoolka jaamacadda xarunta koowaad ee Sigaali aan ku qabanayno shirweynihii koowaad ee jaamacadda ardayda ka qalin jabisay laga soo bilaabo dufcadii koowaad 2017 ilaa dufcada maanta baxaysa ee 2022 inta ka dhaxaysa intaas jaamacadda sanad walba waxay soo saareysay arday kala duwan oo ka baxaya kulliyadaha diiniga iyo maadiga ku hubaysan akhlaaq iyo aqoon. qaar ka mid ah aqoon-yahanada iyo marti sharafkii kulankaasi lagu casuumay ayaa iyaguna hadallo gubaabay iyo dardaaran u jeediyay ardaydii horey ugu qalin jabiyay jaamacadda Imaamu Shaafici in looga fadhiyo isbeddel dhab ah oo la taaban karo inay la yimaadaan. marka waxaan ku baraarujinayaa ardayda in ay si fiican ugu faa'iideystaan jaamacaddooda. sidoo kale waxay kaloo jaamacaddan aad iyo aad macnaha isku qabanqaabisay xaflad noocan oo kale weli maanan ku arkin magaalada Muqdisho. dabcan haddaana tegin idaacadaha maanan ka maqlin tii ugu horeysay intaan qiyaasayaa waan ku faraxsanahay. shirweynahan ay jaamacaddu idin qabatay oo sida la sheegay ah shirweynihii ugu horeeyay oo magaca wata oo arday qalinjibiyaasha loo qabto cala mustawa Soomaal in aan idin kala soo qayb galo. laakiin waxa soo dhan waxa ka sii muhiimsan qofku markuu qalin jabiyo oo maaragtahay jaamacadii ka baxo kadib fursadihii oo ku dhaqaaqi lahaay iyo wacyigelintii waxyaalaha ugu muhiimsan ee gudoomiyaha iyo tiimka wax dooranaya laga rabo waa inay siiyaan yacni baraarujintii iyo qofku markuu inta qalin jabiyo oo iska tago oo gurigiisa iska aado yacni dadkii bulshadii oo ka soo tagayna aysan sida asiga horumarsanayn. Dr. Khaliif Cabdiqaadir Macalin Nuur oo ka mid ah aasaasiyaashii jaamacadda Imaamu Shaafici oo isna madasha kulankaasi hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay in wax lagu farxo ay tahay in maanta uu hor fadhiisto ardaydii horey wax ugu bartay jaamacadda Imaamu Shaafici. maamulka guud ee jaamacadda waxaan kula dardaarmayaa waxa uu mahad celinayaa sida wanaagsan ee shaqada u wadaan aad iyo aad boqolkiiba boqol waa ku faraxsanahay waana ku taageersanahay jaamacadda heerar kala duwan ay soo martay oo qaar ka mid ah ay maaragtay jaamacadda culays badan oo soo gaaray laakiin alxamdulilah. agaasinka tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka mudane Ismaaciil Yuusuf Cusmaan oo gabagabadii kulankaasi hadal ka jeediyay ayaa kula dardaarmay ardayda xilliyada kala duwan ee ka qalin jabiyay jaamacadda Imaamu Shaafici ee maanta kulankaasi loo qabtay in looga fadhiyo sidii ay u garab istaagi lahaayeen horumarka jaamacadda. waa inaad ku fikirtaan laftiina ay yeeltaan sanduuq oo jaamacadda aad mar walba ku garab taagantihiin horumarkeeda. waxaa laga yaabaa jaamacadda inay dhul yeelato. dhulku wuxuu u baahan yahay dhismihii qarash haddii loo hayo waxaa laga yaabaa xataa inaad contribution aad ka geysataan si kuraas iyo miisas iyo maaragtay kombiyuutar ah usoo iibisaan. waxaa laga yaabaa qaarkiin inay shaqooyin fiican helayaan ay dhaqaalena heli karaan. qaarkiin waxaa laga yaabaa in loo diray dibadda oo wax kusoo barteen oo jaamacadda ay daba taagneyd. ugu dambeyntii ardaydii maanta kulankaasi soo xaadiray ayaa waxa ay madasha kulankooda ku doorteen hoggaan cusub oo ay ugu talagaleen sidii ay u dardargelin lahaayeen howlaha waxbarasho ee jaamacadda Imaamu Shaafici iyagoo halkaasi ku doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen. Xasan Yuusuf Cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.